الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حلقتنا أفراد كم حلقته إني حريرها أها متعنها أها بشهر رمضان أن جيدين جرني وحنك كهاد لنا بشا ونأكسن فضلك له رمضان فضلك فرح بدن له وحيابها لجا فائديستو وحكم قرآنك إيه أخرنتيس قرآنك فضل فربضن بوليه markastoo la akhriyayo bisha ramadaanna waa sii fadli badan yahay. Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri innal ladina yatluna kitaaba Allahi wa aqamu salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Kuwa akhriyaya kitaabka Ilaahay salaada oogaya wixii aanu ku arsaaqnay wax kamidana bixinaya si hoose iyo si saraba u bixinaya waxay rajeynayaan ganacsi aan kala go'ayn buu Ilaahay subhanahu wa ta'ala. ganacsigaasi waxa weeyaan waxa lagu helayaa iyo faa'iidadaasi waa akhrinta quraanka la akhriyay iyo cibaadooyinka kale qabashadooda weeyi. quraanka akhrintiisa iyo dhigashadiisa iyo barashadiisa iyo ku amal falkiisa fadliyo fara badan baa loo sheegay. fadliyada waxa kamid ah inuu rasuulku sallallahu alayhi wa sallam khayrukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allama. waxa idinku khayr badan qofka quraanka barta dadkana si bara ayaa idinku khayr badan buu rasuulku sallallahu alayhi wa sallam. أحاديث كلا أفر بدن الرسول كواكو تلمامي بل رسولك صلى الله عليه وسلم وحي ناشعي قرآن كإن ليسوي يماد الله وضع أخرسته الله وضع مراجعي الله وضع سمعيه فضل إنا إلى يضحي والرسول صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده قال إسقمي مادان guriyaha Ilaahay kamid iyagoo akhriya kitaabka Ilaahay oo kitaabka Ilaahay marka mudaarasaynaya dhixdooda ilaa hadii ay dhacdana waxa ku soo degta xasilooni waxa dabooshan naxariis malaa'ig ayaa isku hareeraysa Ilaahay baana ka xuso oo ka amaana cidda agtiisa ku sugan oo marka malaa'igta agtooda ayaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ka xusaa. quraanku marka walaalayaal fadli fara badan buu leeyahay ammaan badan buu leeyahay waa sharaf weeyaan oo wuxuu sharaf u yahay dadka muuminiinta buu sharaf u yahay fadliga iyo ajarka uu leeyahay rasuulku sallallahu alayhi wasallam waxyaabuhu ku tilmaamay waxa kamid ah inuu yiri inna allaha yarfa'u bi hadha alkitabi aqwaman wa yad'u bihi aakharin. ilaahay kitaabkan quraanka dadka qaarna uu sharaf ugu yeelayo kor ugu qaadaa qaarna uu ku duleeyayo hoos ugu dhigaa buu rasuulku yiri wuxuu sharaf ugu yeelayaa oo uu ku karaameynaya oo uu wax weeyaan kor ugu qaadaya dadka akhriya ku amal fala isku daweeya u xukun doonta saasoo kale markaa hortooda dhiga ee quraanka sida u sharfa ayaa Ilaahay uu ku sharfaya subhanahu wa ta'ala sharaftaana ku helaya. sida oo kale quraanka wuxuu rasuulku inoo sheegay sallallahu alayhi wa sallam inuu u shafaaco qaadi doono qofkii akhriyay ku amal falayay la saaxiibka maalinta qiyaamaha yaqra'u al-qur'ana fa innahu yati yawm al-qiyamati shafii'an li ashabihi. quraanka akhriya buu rasuulku sallallahu alayhi wa sallam waayo maalinta qiyaamaha wuxuu imanayaa isagoo u shafaaco qaadaya asxaabtiisii. asxaabtan uu u shafaaco qaadaya waa kuwee waa dadka ku amal fala. qofka aan ku amal falayn quraanka waxa ugu weyn ee loo soo dejiyay waa amal falka weeyaan. muhiimadda ugu weyn waa taa qofka hadaan ku amal falayn wuxuu noqonayaa qof quraankii waxa weeyaan si uga tagay. sida ogeed baa rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri yuta yawm al-qiyamati bil qur'ani wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna bihi fi ad-dunya تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. وحلكين دونا ما نتقيامها قرآنكي يأهل كيسي كعمل فالهجري يدو قرآنكي أي هركع عيان سورة البقرة إيا آل عمران يقو أدودا يا مركع عدي صاحبك لا أحايد أي أدوديان وعدا كعمل فليسي وعدا دغانيسي دغيسنيسي أخرييسي اسكو حكوميسي اسكو دوينيسي عدكو واويان مركع أخرنت الله أخريايو فضل قار أيو رسولك وشيخ صلى الله عليه وسلم. ورسولك صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا في كتاب الله ومن قرأ حرفا من كتاب الله فله بها حسنة. قفك أخريا حرف كم ذا كتابك إلهي حسنة أيولي والحسنة بعشر أمثالها. حسنتنا طبعا شرب اللولي من لابا يا قفك برسولك صلى الله عليه وسلم. لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف واللام حرف وميم حرف. إذن أرى ما أيو ألف لام ميم وحرف لكن ألف كوا حرف لام كوا حرف ميم كوا حرف الرسول كله ألف لام ميم بوحي كوابن تهي صدح حرف صدح ذا حرف أي كوابن تهي بمد والبقف وحكوه ليا
toban xasano ayuu ku helayaa. Marka qofkii alif laam miim akhriyey wuxuu helayaa 30 xasano. qofkii suurad akhriyey in ka badan, qofkii jirs akhriyey ilaahay baa koobi kara wuxuu helayo inta in ka badan qofkii akhriyey ilaahay baa garanaya oo waxa weeyaan qiyaasi karaya waxa uu helayo. sidoo kale rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu inoo tilmaamay quraanka sida loola saaxiibo iyo quraanka barashadiisa iyo akhrintiisa sidii lagu kala ahaa aakhiro darajooyinka in lagu kala sareynayo. wuxuu rasuulku sallallahu alayhi wasallam yuqaalu li saahibi alqur'aani iqra wartaqi ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. قفك قرآن كلا صاحبك هذا ما أنت آخر وحلا قرآن دونا قرآن كي آخر جنة نفنا أو كروكا دليل ما شيء كسر رئيسك فضل بدن تهاي ترتيلي أو كلا دق ساد وكلا دق جرتي منزلة إيام مكان كأد جليسا ما أنت قيامها وآيات ugu dambaysa ee aad akhrida halka ay kaaga dhamaato saasa lagu oran doona qofka rasuulku sallallahu alayhi wasallam sida awgeed qofkii quraanka ka yaqaanay hal jis iyo qofkii 10 jis ka yaqaanay isku meel geli maayaan kii jis yaqaanay iyo kii 30 jis yaqaanay isku meel geli maayaan kii 10 ka yaqaanay iyo kii 20 ka yaqaanay isku meel geli maayaan darajadoodu aad bay u kala sareynaysaa. waxa kale rasuulku sallallahu alayhi wasallam oo inoo dardaarmay inaan quraanka ka warhayno oo la akhriyo oo la muraajaceeyo oo la subciyo oo aanu noqon markaa mid la sii daayo waayo wuu fakanayaa. wuxuu ku tilmaamay inuu yahay sidii neef geelahoo dabran oo dabarkii laga sii daayay siduu u baxsanayo oo kale inuu u baxsanayo. waxa kaloo rasuulku sallallahu alayhi wasallam inagu dhiiri geliyay quraanka in cod fiican lagu akhriyo. zayyinu alqur'aana biaswaatikum rasuulku sallallahu alayhi wasallam quraanka codkiina markaa ku qurxiya fa inna sawta alxasana yaziidu alqur'aana xusna. codka fiican quraanka wuxuu ziyaadiyaa قروح يوناك بوسيا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحابة عتق في عنك وآخرنا رسول بيري كريج صلى الله عليه وسلم. أبو موسى الأشعري بقى كم دها أو أنتوا هبين صام رئيس القرآن آخر آية كل جيس وصاق بربير دقيستي ما له الضباء وحكول الرسول هذا مقل لهيد حلا يعني كل جيسنا يقرأ هذه لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داوود عتق كم ده عتق كي وناك سلاي النبي داوود بالكوسيه. deedna Abu Musa al-Ash'ari wuxuu lahaa rasuulka Ilaahay hadaan ogaan lahaa inaad dhageysanayso la xabartuka tahbiran waa ku sii qurxin lahaa rasuulka ayuu markaa. rasuulka laftiisa sallallahu alayhi wasallam wuxuu ahaa mid aad u cod fiican. saxaabada kamid ah al-Bara ibn Azib baa wuxuu yiri nabigaana tukiyay salaad maghrib wuxuu akhriyay watini waz-zaytun fama sami'tu ahadan ahsana sawtan minhu. qof ka cod fiican rasuulka maan maqlin buu saxaabigaasi oo aad u cod fiicnaa buu yiri. codka wanaagsanna waa inagu dhiiri galiyay marka in lagu akhriyo quraanka. sidoo kale waxa inagu dhiiri galiyay quraanka inaan ku khushuucno waxa weeyaan akhrintiisa marka aan kula nimaad khushuuc oo uu noqdo marka mid qalbiga ka soo go'ay oo aanu ahayn mid afka laga akhriyayo. sida awgeed baa rasuulkuna wuxuu markuu quraanka akhriyayo mid marka khushuuca ooya ilmeeya ayuu ahaa. saxaabiga la dhaca Abdullah ibn Mas'ud ayaa wuxuu yiri rasuulka maalin wuxuu igu yiri iqra alayya alquraan quraanka igu dul akhri waxaan ku yiri aqra'u alayka wa alayka unzil rasuulka Ilaahay oo ma adigii lagugu soo dejiyay baan kugu akhriyaa. rasuulku wuxuu yiri waxaan jecelahay cid aan aniga ahayn inaan ka maqlo waan ka dhageysto. dabeedna waxaan ku dul akhriyay buu yiri suuratu nisaa ilaa aan soo gaaray buu yiri aayada quraanka ee Ilaahay uu yiri fa kayfa idha ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula'i shahida. aayada quraanka markaan soo gaaray buu rasuulku yiri xasbu halka ku daabu faltafattu fa idha aynaahu tadrifan waan daymooday buu yiri waaba labadiisi indhood oo ilmeynayo oo da'ay buu rasuulku waa oogay sallallahu alayhi wasallam. sida awgeed quraanku waa mid loo soo dejiyay amal fal akhrisasho waxa weeyaan isu daweyn isku xukumid iyo waxa weeyaan nolosha gebigeedaba in lagu xukumo oo waxa weeyaan qofka ay u xukunto laguna amal falo wayba gaar ahaan in bisha Ramadaan aad looga faa'iideysto oo la akhriyo waa bishii waxa weeyaan quraanka dadkii salafkii wax walba way iska deyn jireen bisha Ramadaan quraanka ayuun bay akhriyi jireen. markaas qaarkood ay maalin walba dhameyn jireen 2 maalmood 3 maalmood qaarkood toddobaadkii maalin dhameyn jireen qaarkood sidee u dhameynayeen sidee bay ahayd imaka inaku waxaan ku mashquulsanahay sidaynu ugu mashquulsanahay bay quraanka ugu mashquulsanaayeen. waxa laga yaabaa qofka inaga midkii inuu saacado dhan moobilkiisa uu wadwado oo marba meel galo oo marba wax ka eego oo marba wax ka daawado oo marba wax ka dhageysto markastoo fursad helo inuu la soo baxo oo uu shito
uu kala bixiyo ayaa waxa weeyaan dhacda sidaasoo kale quraanku uu ahaayo ay quraanka ugu mashquulsanaayeen oo waqtigooda dhan ay ku bixin jireen sida awgeed baa waxa ay noqotay kuwa akhriya waqti fara badan qofkana cimrigiisa iyo waqtigiisuba waa ugu barakoobaya akhrinta quraanka marka bilasha fadliga lana looga faa'iideysto wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam